فادمada waxaan ku leeyahay hadal habar yar hadalkaad lahayd shalay toole ee lahayd suldaan doorta suldaan xasan anaga marka hore suldaan noomu ahayn horta waan ku faraxsanahay cabdiraxmaan ciro shalay raggii ka ololeynayay madaxweynahoogii inaad noo soo qowracdood birta dhaafisid tolkay subeer walna waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay anaga farxad bay noo tahay meydka kasoo jiita madaxtooyada kii iska bixiyey ee bila iyo wax ku qorqoraya uu iska daalay dhalinyartaakan waxaan u leeyahay boorka intaad goysaan boorkii magaalo biixi toos ugu dajiya cidda ku timaadana waynu arki doonaa inay ciro soo saartay dhisto horta nasiib daray ku noqotay waxay tiyaan la ii qabanin hadalkii subeer awal haddaad tihiin subeer awal kuma qabanayaan edo sharaf iyo karaamaan ku haynaa waxaa jirtay rag badan oo shalay ka kaambeyn garaynayay adeeradood raggaasi oo adeerkoodu qowracayay si ay muxuu ahaye iyagoo masab sare haysta ay u helaan misqaala darra wasiir ama muxuu ahaye agaasime ay u helaan horta waan ku faraxsanahay cabdiraxmaan ciro shalay raggii ka ololeynayay madaxweynahoogii inaad noo soo qowracdood birta dhaafisid tolkay subeer walna waxaan leeyahay waan ku faraxsanahay anaga farxad bay noo tahay meydka kasoo jiita madaxtooyada su-aashaad weydiisay xamse cawkow meydka soo qaataan leeyahay annaga intii gobtahaydee subeerawalnimada ku dhamaydee saafiga ahaa waa kuwii banaanka istaagay intii caada qaatada ahayd mar haddii naloo soo qowracay waxaan ku leeyahay hambal iyo cabdiraxmaan dhinac kale shalay xaafadda magacii laga bedelay magaalo biixi ku tagay arrintaa dadka deegaanku ka gadooday sidoo kale muuqata wallaahi waxay soomaalida tiraahdaa ninkii hadlayaabaha iska hadlo horta magaalo biixi ilaahay baa dee u bixiyey oo marka wax la bixinayo dee samada ay ka dooran tahay kii iska bixiyey ee bila iyo wax ku qorqoraya uu iska daalay dhalinyartaakan waxaan u leeyahay boorka intaad goysaan boorkii magaalo biixi toos ugu dajiya cidda ku timaadana waynu arki doonaa biixina halkii ay u magac baxday ayay taagnaanaysaa shacbi weynaha iyo dhalinyarta iyo waxgaradka iyo aqoonyaankuna garabkiisa taagay ummaduna maaha wax afka laga sheegtee qalbiguu ku qoran yahay magaalo biixi qalbiga ayuu muuse biixi cabdi xidid ku qoran yahay waaba se magaalo yaroo loo bixiyey magaalo biixi qalbiga bini-aadanka cidna kama masixi karto marka waxaan ku leeyahay dhalinyarta boorka hala gooyo boor weyn oo biixi ku qoran tahayna ha lagu dhajiyo saacadii lasoo dhaafay baraha bulshada wareegayeen shirkii xisbiga kulmiya ee golaha dhexe mar labaadna u baaqday arrintaa dadka waxay sheegayaan in khilaaf uu soo kala dhex gala mas-uuliyiinta sarsare xisbiga kulmiya arrintaas ma jirtaa su-aasha haddaad weydiisay inaan ka jawaabo may qurux badnayn lakin waxaan kuu sheegaya keliya kaga baxaya waxay haysta oo xubnaha sare ee xisbiga ma jiraan danahooda iyo ayagoo kulli ku maqan inay ka tashanayaan xisbiguna waa sidiisii mas-uuliyiinta xisbiguna ay ka tashikooda iyaga hawshoodaasi u taala iyagana ka shaqeyn doona hadii ala ka dhigo su-aal baan ku darayaa tii hore magaalo biixi arrinta kulmiya dad badan oo reer somaliland khilaafa soo kala dhex gala baa leeyahay madaxda oo shirki u qabsoomi laaya arrintaas ma jirtaa walaal wax ka jira ma jiraan shirkaasi waqtigii lagu talagalay uu qabsoomayaa mas-uuliyiinta xisbigana hawshoodii iyo abaabulkoodii iyo hawshoodii ay qabsanayeen bay ku jiraan propagandada suuqa lala dhex wareegayo waxba ka qaadi maysa laakiin mas-uuliyiinta xisbiga kulmiya shaqadoodii iyo hawlwadeenadoodiiba shaqadoodii bay wataan way subcan fadimaadan gabadh la baa hadashay madaxweyne cirka ka cabatay iyo suldaan xasan bal hadaladeeda ka wada wallaahi shalay way taabatay hadalkii faadimo aadan mar waa habartay marna waa edaday waxay ahayd ay uga carartay edadeed waxay uga carartay waxay ahayd inay ciro soo saartay dhisto horta nasiib daray ku noqotay waxay tiyaan la ii qabanin hadalkii subeer awal haddaad tihiin subeer awal kuma qabanayaan edo sharaf iyo karaamaan ku haynaa haddaad adu shay ka tagtay reerkiina maanta reerkiinu kuma dayacayaanay garabkaagay taagan yihiin laakiin waxaa nasiib daro maanta taagan beelweynta qarxajis reerka qarxajis la yidhahdo waxaa maanta nasiib daro ku taagan tahay buurta gacanlibax koray ayaan darada haysta waxa weeyaan reerkii u godoboobay ee hablihii ka tegay reerkooda iyo raggii ka tegay reerkoodaba way qowraceen oo way abiyuuseen oo way caburiyaan nasiib darada horta waa taa dawladda cabdiraxmaan cirana waxaan leeyahay inantii iyo hablihii iyo raggii kuu godoboobay hoos waad u eegi weydayo waa danayn weyday nasiib daraa ku dul suran annaga horta rag badan baa jiray oo annaga naga soo horjeeday oo masab saraya ku haysta meel yaroo misqaala dara ku cararayay kuwiina waad noo soo karbaashtay faadimaadan waxaan ku leeyahay habar yar hadalkaad lahayd shalay toole ee lahayd suldaan doorta suldaan xasan anaga marka horeba suldaan noomu ahayn suldaan subeer awala mu ahayn suldaan buurta gacalibax jooga buu ahayo boqolka doolaroo la siiya ay kafeynayaan sida adiguba ka dhawaajisay waa nasiib daro suldaan samaystaa tidhi habar yar suldaankiina waa samaysan yahay suldaanka guud ee subeer awal waa suldaan maxamed sidaa horta barasho wanaagsan waad la og tahay waxaana ku leeyahay adigii inantii kale ayaana hadlayay horta nasiib daray tahay
dadka yagii shalay tole sii cararayay ee adeerkood boqon tahay i qowracayay in horta naloo soo karbaasho laakiin hablaha iyaga oon garab taagannahay waxaan leeyahay adeer suldaankii waa inoo taagan yahay subeera walle meel kastuu joogaba waxaan leeyahay waa ku soo dhawaynayaa gacmo furan buu kugu soo dhawaynayaa kuma fogeynayno hiil iyo hooba waan kula garab taagannahay cabdiraxmaankaad sheegaysaa madaxweynihiina waa kii kuu hiilin waayey eed weliba shalay tollaay aad lahayd eed habar yar noo soo jawaabisay dadka soo jawaabaysay anigaa ka mid ahaa habar yar maantana waan ku garab taaganahay kuma dayacayno kumana erayno haddaan usoo dhaadhaco nuxurka ugu dambeeyaan ka hadlay waxa weeyaan oon leeyahay maanta oon fariin adag u dirayaa oon si gaara ula hadlaya reerkayga aan ka dhashay subeer awal horta intaanu subeer awal ka horeynin waxaan la hadlayaa oon kelmad yar u duul xurayaan marinayaa cabdiraxmaan ciro rag aniga iga dhashay oo beelweynta subeera gaar ahaan baha muuse oo ku raacay weliba dhalinyartii aniga odayada kama hadlayo odayada kama hadlayo dhalinyartii mustaqbalka lahayd ee xanka lahayd oo qaar ka mid naga soo horjeesteen halkeed marisay reerkii baha muuse dhalinyartii ku raacday ee annaga naga soo horjeestay ayagana halkeed marisay bal waxaan ku doonaynaa aan ku weydiinayaa anigoo shabcaana halkeed geysay eed ku qowracday taasi waana sii daro guntii iyo gabagabadii waxaan leeyahay reerkayga subeer walbaan maanta fariin faraya subeer walow waxaa horta inoo ballana baahi hawl adag baa inoo taalla baahiyo badan baa inoo yaala shaqooyin badan baa inoo yaala shaqada ugu horeysan bilaabayna waa waqooyigii inaan isugu nimaadno waqooyigeeni deegaanadeeni waqooyi hadalaa ka taagan dadka ka taagan inaan runta u sheegno ayaan rabaa subeer wal waxaan fariin u farayaa horta waqooyi kow waan aan iskugu nimaadno waqooyigeeni aan iskugu nimaadno marka labaad adeer nin la sugayo adna yaad sugi subeer wal waxaan leeyahay dhalinyartoodii iyo waxgaradkoogii shir baynu isugu imanayna aynu kaga tashanayna aayaheena iyo halkaynu waxu jahaynayno sidii aynu halkayna gaadhsiiyeen reerkii buurta inoo koray aan beerka uga ogaano taasaan kaga tegayaa waxaad leeyahay nabad iyo caano